Somaliland waxaa ka imaanaya warar iskhilaafsan dawladda iyo mucaaradkaba siyaabo kala duwan ayay ugu hadleen hadda iyo mar horeba balse aan u soo gudubno arinta xorriyadda shakhsiga dhawaan waxay dawladda Somaliland ay dhalinyaro ku eedeysay inay wadanka khatar ku yihiin haddaba maxay tahay eedeymaha lagu haysto nimco qorane iyo waliba maxmed kayse walaal nimco waxa lagu haystaa horta waa gabadh qiimo badan oo gabayaya oo mutacallimada weeye oo runtii ummadda Soomaaliyeed wax weyn u soo kordhin karta eeda lagu sheegay nimco waxa weeyaan inay calankii buluuga ah huwatay oo xamar sidaa samaysay inay aflagaado u keentay dawladda Hargeysa iyo waxyaabo caynkaas oo la mid ah laakiinse dambi laguma sheegin inay abaabuleysay dad ku kacinayso ummadda lama sheegin inay hub iyo rabshado kala keentay waxa lagu keenay waxa weeyaan waxbaad qortay iyo waad hadashay waayo ninka kale walaalkeedana waxa lagu eedeynaya oo la leeyahay waxa tidhi madaxweynaha Somaliland waa madaxweyne local ah markaas waxa weeyaan inay ama kaag iyo yaab noqoto in qof la dhaho madaxweynaha adigoon aflagaadeyn xataa oon magaciisa ceeb ku sheegin oo tidhi madaxweynuhu waa local dee Trump waa local madaxweyne waa Mareykan buu local u yahay marka Muuse bixin hadee waqooyi buu local u yahay marka ceebta keentay arintaasi hay keenaysa ee odhanaysa qofkii ama waa in la hadidaa ama waa in la xidhaa ama waa in laga dhoofiyaa meesha waxay ku tusaysaa kalsooni la'aanta maamulka Hargeysa jooga oo isku qabo ee ah hadday isku kalsoon yihiin oo ummadooda ku kalsoon yihiin ummadeena ku kalsoon yihiin de waxa weeyaan waa loo jawaabi lahaa hadal baa deeqa hadduu qof wax qoro waxba laga qori tilmaan baan ku siin doonaa walaal deeqow haybada u dhaxaysa Maxamed Ibraahim Cigaal iyo wixii ka dambeeyay Maxamed Ibraahim Cigaal ayaa waraaq loo geeyay anigoo Gibile jooga Allah yarxamo intuna dhiman markaas lagu yiri ninkan ina samatarihi waxan buu sanad walba qoraa hadana Gibile uu kastaba yimaada uu jooga hadeerna Gibile uu jooga marka la soo qabto hal la xidho dadkii Allah yarxamo Xuseen Tanzani Professor Xuseen Tanzani oo la jooga ayaa ii sheegay markaasuu waraaqdii buu ka qaaday sidaasuu u eegay markaasuu buu yiri wuxuu buu qoray Soomaha rasaas miyuu soo qaatay maya de waraaqdii intuu dib ugu tuuray buu yiri inkuna ordo qorade marka wax isku qabay kalsooni buu isku qabay in qoraalku fasax yahay hadalku fasax yahay wixii nabadda rabshad gelinayaan hay dambi yihiin marka in sidaa loola dhaqmo sidii Maxamed Ibraahim Cigaal u dhaqmayay in dadka loola dhaqmo ayay ku tusaysaa inayna meesha oolin ta kale waxa weeye gabadh aabaheedo xanuunsanaya u timiday inay aabaheed ka kaxayso oo la soo daweeyo inay u naxariis qabaan ayaa wajigu iyo walaaltinimadu aan lahayd laakiinse inta dhowr bilood meeshii lagu hayo jeelkii ee telefoonkeegii la baadho ee dabadeedna la aflagaadeeyo 3 sanadood baan kugu xidhnay cadownimada inta leegay meeshay ka socoto anigu garan maayo arintani waa arin soo noqnoqotay horena waxaan ogeyn Cabdimalik Muuse Coldoon oo sidaan kale loo xiray marka maxay maamulka Somaliland ay uga cabsoonayaan in dhalinyarada ka soo jeeda deegaanadaasi ay fikirkooda cabiraan waxa looga hor yimid waxa weeyaan intayna dadka karbaashka xoog la ku bilaabin waxa weeyaan hadalkii bay dadka ka xidhay waayo waxaad moodaysaa inayna kalsooni qabin haddii doodi furanto in doodii laga badinayo kuwana inay sidaa qabaan iyo in kale war kuma hayo laakiinse calaamadaheedii ayaad arkaysaa inaad hadal qof ka baqatid oonad hadalkii hadal lagu jawaabin oo dabeedna dadkaagii hanad qancin oonay arkin inay doodaadu ka sarreyso dooda ka soo horjeeda marka waxay ku tusaysaa arinta ka hooseysa waa camal dictatorshipnimo oo ah qofkii ra'yigayga ka soo horjeeda ma joogi kara halkan mana noolaan kara halkan waxa weeyaan dooda anaa xeerta soo xeeraya wixii intaa ka baxsan lagama hadli karo de bal ka soo qaad wadamada mesela South Africa oo kale ama ka soo qaad Kenya oo kale waa la dood baa furan waxa weeyaan marka hadday Somaliland sheeganayso inay dimuqraadiyad tahay oo Afrikada kale ka hormartay waxa weeyaan dictatorshipnimada darteed ayaa looga baqanayaa dhalinyarada caynkaas inay hadlaan oo muujiyaan shucuurtooda oo dadkooga la wadaagaan walaal
inkastoo dadka taageersan Nimco Qorane iyo dhalinyarada kale ee la xiraya ay ku doodayaan in lagu xadgudbay xorriyadda shakhsiga, haddana xeer ilaalinta Somaliland waxay sheegayaan in dadkaasi ay jebiyeen sharciga dalka u yaala. Arrintaasi miyaa diidan tahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar? walaal waxa weeye sharciga laba kala qaybsama, sharci xalaal ah iyo sharci xaaraan ah. waxa weeyaan qofka qarandiidka wuxuu noqonayaa qof ama soo abaabulaya dad fara badan oo doonaya inay dawladda ridaan oo afgambi inay sameeyaan, laakiinse qof hadlay ama wax qoray iyada ra'yigeega ay ku cabirayso ama ninka journalistku uu ku cabirayo waxa uu arkay, ma arki karo dambi inuu noqon karo hadduu sharcigu markiisa hore xalaal ahaan lahaa walaal. marka waxaan qabaa sharciga dadka lagu afduubayo naftiisa ayaa xaaraana. maadaama dhalinyaradan lagu eedeynayo in ay aaminsan yihiin arrinta qadiyadda Soomaali weyn, marka dowladda dhexe ee Soomaaliya maxay uga hadli laadahay arrintani? wax kaalmo ah ma ka gashaa haddii ay ka hadlaan? walaal deeqo waxa weeye ma markay noqoto hadal siyaasadeed oo la iska hadlayo la odhanayo midnimada Soomaalidu waa muqadas waaye, mise markay noqoto fikir wax orinaya iyo ajenda la meel marinayo iyo hawl la dabagelinayo oo waxaa ka midha dhalinaysa, ta ugu horeysa way ka hadliyo waxa odhan waa muqadas weeye, Soomaali ma kala goyi karto, arrinta berberaynu u iman doonana siday uga hadleen baad arkaysaa. laakiinse markay noqoto in la dabagalo hawl iyo ficil la geliyo hadalkaasi dadka reer waqooyigana qancin kara, dadka dhibaataysan ee xadhigga lagu qabtay aan xaqa ahayna wax u tari kara, weli lama hayo walaal arrintaasi. marka waxaad moodaysaa siyaasiyiinta iyo dadweynaha koonfur degan in la kala saaro waayo. dadweynaha meelhan maray oon runtii haynaad u diidiyeyn waddaninimadooda iyo qarannimada iyo midnimada Soomaaliyeed ma malaynaysid. waa tii dadka Hargeysa hay iska gureen lacag markii abaaruhu ka dhaceen koonfur iyo macaluushu ka dhaceen. koonfurna sidaasi leeg ayaa gargaar loogaga diray waqooyi iyo dhulka kalaba. marka waxaad arkaysaa dadweynuhu dareenkooga iyo qalbigooga iyo laabtooda inay u furan tahay arrintaasi, inta itaalkoogu yahayna hiil hay ka geysanayaan. haynu u soo noqono markaasi arrintan gabadha la xidhay, Nacimo la xidhay, u malayn maayo in dhowq hadal ka soo baxay Muqdisho odhanaya gabadhaasi xaqdarray ku xidhan tahay, dembi maaha calan hay xidhataa, adduunyadoo dhan baa laga xidhaa. dee hadday hiil siin lahaayeenna kabada wanaagsanaan lahayd. marka hiilna lagama hayo, hadal dad qaboojin karana lagama helo, hadal wax dhiirin kala wanaagana lagama hayo. marka waxa weeyaan Soomaali aan waxaan qabaa haddii jumhuuriyadda dib loo dhisayo maamul siyaasadeed oo ka duwan waxa maanta koonfur jira ama gobollada intooda badan ha noqdaan ama xamar ha noqdaane, haddayna iman xamar ayaa xabaalasa qarannimadii Soomaaliyeed walaal. marka muxuu yahay ajendaha marka dowladda dhexe ee siyaasadeed ee ku saleysan midnimada qaranka? ma arag weli wax qorana lama hayo. waxaan garanayaa markii hay dowladdan cusub la dhisay ayaa mar baan la hadlay wadaadada madaxda ka ah, arrimo ayaanu kala hadlay oo maalan in la dhiso barnaamij weyn oo madax bannaan oo dad siyaasiyiin aan ahayn loo dhiibo oo aan lagu soo xisaabin 4.5 ama 4 aan lagu soo xisaabin sidii tii Xasan Sheekh waxa isugu keenay shir baa la isugu tagay maxay ahayd Turkiga amuuraha lagaga hadlayo, dadkii imanayay 4.5 ayay ku soo keeneen. dee Soomaali iskuguma iman karta 4.5, islaamnimo iyo Soomaalinimo iyo mabda ka wanaagsan baa la isugu iman karaa. marka maalintii waxaan ku yidhi waa in hadday nila tahay waa in la sameeyaa dad waxoogaa kooban oo dhaqanka si wanaagsan u garanaya, oo diinta si wanaagsan u garanaya, oo hunguri aan lagu aqoon, oo barnaamijkeena dadka reer waqooyiga lagu qanciyo, doodna lala galo. taasi koob ahayd, weli hadal lagama hayo, manay abuurin ba halkaasi. ta labaadna waxa weeye siday u hadlayaan markay arrinta berbero kala hayn ku hadli doona u hadlayaan inay fahmaan hadalka qiimihiisa iyo qiimo la'aantiisa. marka weli walaal barnaamijna ma arag, abaabul kaloo socdo ficilana ma arag, laakiinse hadal xamar siyaasiyiinta wuu dhex yaala. siyaasiyiinta markay noqoto weliba kuwa maamulka haya markay noqoto waxa weeyaan ma hadal mise hayn. hadal waa laga heli oo caynkaasaa la odhan,
laakiinse wax ficila oo taabagala oo la taaban karo weli anigu ma arag ajende qorshe la dhigay oo istraatiijikana oo lagu soo hubinayo sidii loo kalsooni looga heli lahaa dadka waqooyiga ee soomaaliyeedna anigu weli tan kuma arag tii xasan sheekh kuma arag tii sheekh shariif kuma arag tii cabdilaahi yuusuf kuma arag tii cabdiqaasimna kuma arag marka waxaad moodaysaa siyaasiyiinta koonfurta madaxda kay maaha dadweyne in iyaku magacaa weynay iska huwadaan oo jagooyinkaa hay sheeganayaan hayayaan mooyaane wax dhaxalgala oo ficila oy arrintaa gelinayaan ma arag barasare cabdi ismaaciil samatar sidaad ogtahay dowladda soomaaliya waxa ay ku dhisan tahay nidaamka ah 4.5 haddaba deegaanada waqooyi waxaa ka soo jeeda xildhibaano iyo wasiiro oo ka tirsan dowladda soomaaliya ee hadda xamar jooga maxaa loo maqli waayey codkooda iyo fikirkooda door intee leeg ayayna ku leeyihiin amuuraha hadda socda walaal deeq waxa weeye 4.5 marka lagu qaybsaday mid bay yihiin dadka degan waqooyi intooda badani marka wasiiray leeyihiin ra'iisul wasaare ku-xigeen baa jooga golaha sare guddoomiyihiisa cabdi xaashi baa jooga waa la fara badan yahay laakiinse intooda badan anigu sidan u arkay horena dowladihii horena aan ku arkay waxaad moodaysaa inay maqaarsaar yihiin maqaarsaar siday u yihiinna waxa weeye inta badan waxa meesha geeyey waa hunguri waayo iyo jagadoon laakiinse inta iyaku is yimaadaan ay tiim ahaan kutlad ahaan u shiraan ay yidhaaheen mowqifkeennu waa arrinta caynkan iyo caynkana dowladduna ilaan waxaynu leenahay intaasoo xildhibaan baynu leenahay intaasoo wasiir baynu leenahay cod baynu leenahay waa in laisku duubnaadaa oo laga hadlaa danta soomaaliyeed guud ahaan iyo danka gobolka gaarka aynu mathilano weli amuuraha lagama hayo marka waxay taasi caddaynaysaa shikigayga ah in meesha jagooyin loo joogo iyo in dan gaar oo kale loo joogo ee aan loo joogin dad dan soomaaliyeed oo xalaala mathilaya iyo dad mathilaya gobolkaasi xaqu ku lahaa waddanka oo dhan marka waa la yaab weeyaan kuwa dowladda madaxda ka ahina ama ra'iisul wasaare ha noqdaan ama madaxweyne ha noqdaan ya waxaad moodaysaa inay carbiyeen dadkaasi wasiirada iyo xildhibaanada ah oon su-aal kalaba imanayn markay amuurahan yimaadaan marka waxaan odhan lahaa qolooyinka reer waqooyiga jooga magaalada muqdisho siyaasadda ku jira ama dee mathila qaybtii xalaal uu lahaa waqooyi ee dowladda dhexe lagu lahaa de ama meesha iskaga taga weeyaan dhanka kale arrintii heshiiskii berbera war ayaa kasoo noqday dhowaan waxaa hadlay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta isagoo wareysi siiyey laanta afka carabiga ah ee b b c da wuxuuna sheegay in midnimada soomaaliya ay muqadas tahay islamarkaana ay taageersan yihiin midnimada soomaaliya arrintaasi durbadiiba waxaa ka falceliyey mucaaradka somaliland iyo weliba shacabka baraha bulshadan waxaa isqabsaday hadallo dadku waxay u baahan yihin sharxad dheeri ah maxay kula tahay barasare cabdi ismaaciil samatar walaal warka maan dhegaysan waanse maqlay hadduu wasiir ku-xigeenka amuuraha dibadda ee imaaraadku leeyahay arrintaasi waa sidaa uu adii sheegtay laba arrimood ayaa ka soo fiilaya mid waxa weeye dubai world combanigan dekadaha maamulaya dowladda ayaa leh marka waxa weeyaan sidee buu ugu dhawaaqi karaa combanigaas iyadoo dowlad wax ka duwan wixii dowladdiisu wadatay waa ta koobaad ta labaadna waxa weeyaan warka igu soo gaadhiya waxa weeyaan inuu sheegayo inay dowladdii soomaaliyeed tan xasan khayre iyo farmaajo ka horreysay inay la heshiiska la galeen haddii taasi hay dhab tahay waxa weeyaan jariimad weyn oo dowladdaasi hay gashay oo ah in qayb ka mida raasamaalka ka soo baxaya magaalada berbera una gelayn waqooyi iyo somaliland ay etoobiya yeelanayso taasina waa dembi kale waayo oo soo fiilaya ta saddexaad waxa weeye haddii ay leedahay imaaraadku muqadas weeyaan amuuraha soomaalida midnimadeedu dee waxa weeyaan sidee bay ku dhacdaa inay gobollada saani ugu tagto iyadoon marin dowladdii dhexe markaa ama dowladda dhexe ayaa naafo ah ama waxay sheegayaan imaaraadku sheegayaan wasiirkoogu ayaan run ahayn mid hay noqotaba war jira cakaaraha ayuu iman doona haddii alla ka dhigo hadalka ka soo jeera marka wasiiru dowlaha saameyn intee la eg ayay ku yeelan kartaa somaliland waxa weeyaan waxaa laga yaabaa siyaasiyiinta inay khalkhaliso siday u khalkhalinaysaana waa adigan ii sheego mucaaradkii baa durba yidhi dee
madaxweynihii hore Siilaanyo iyo kan Bawa inay iscasilaan waayo waxay galeen jariimo qaran bay galeen waxa weeye aniga waxa u daran waxa weeye horta berbera in la dhiso dekedaa la dhiso waxay ahaan jirtay dekeda ugu weyn ee Soomaali leedahay bay ahaan jirtay in dib loo habeeyo maal la geliyo laakiin si xalaal looga baaraan dago cidda wax gashanaysa iyo cidda wax ka helaysa inay cidda wax gashanaysaana noqdaan meesha imaaraadku hadday wax gashanayaan waa maasha Allah dadka wax ka helaya ee imaaraadka aan ahayn inay noqdaan Soomaali oo qura ee ayna noqon dawlado shisheeye oo gobolka degan ah marka waxa weeyaan dawladda hadda jirtay joogta magaalada Hargeysa inay warkoo cad si wanaagsan u soo saarto taxamarnahay soo saarto wixii laga og yahay waayo ra'iisul wasaaraha Muqdisho Xasan Khayre Soomaaliya maalmihii amuurahan laga waday saxiix dhacayay magaalada Dubai wuu joogay manuuna ogeyn marka inay dawladda Muqdisho ismoodsiinayso inayna ogeyn iyo inay ogaayeen waa mid waaye marka waxay la tahay arrimahan si xalaal u soo baxdo in wax walba la soo sadxiga la soo dhigo miiska la soo dul dhigo dadka reer waqooyiguna si arkaan runtii waxay tahay dadka Soomaaliyeed kale jumhuuriyadiina inay arkaan waxa jira meesha ay tahay laakiin se qolooyinka xamar joogay siyaasiyiinta ee maamulka haya waxa weeyaan si markaad u fiirsatid sida uga hadlaan amuuraha midnimada ay tan berbera ka mid tahay waxaad moodaysaa inay tahay tii ahayd annaka xukumna Soomaaliya laakiinse aan dareenka shacabka taabanayn oo maxay ku kari waayeen inay macneeyaan sidii dekada loo dhisi lahaa ay dadka boqooyiga degan wax uga heli lahaayeen ay Soomaali oo dhan oo gobolka degan wax uga heli lahayd marka waxaad arkaysaa inayna qoto dheerayn fahmadoodu ka talinaysa sida loo soo dhicin lahaa midnimadii walaal